waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka. barnaamijkan degdega waxaan ku eegi doonaa khilaafka soo kala dhaxgalay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug iyo halka uu ku dambeeyo. madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo qaaday tallaabo koox hortagayo magacaabista uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. aynu ku horeynay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo dowladda federaalka ayaa haatan u muuqda mid soo kala fogaanaya kadib markii tallaabo maanta uu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo magacaabis sameeyay. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa soo saaray amarra burburinaya magacaabistii Maxamed Daahir oo ay dowladda dhexe dhawaan u magacawday taliyaha booliska Galmudug iyadoo xilka lagu celiyay taliyihii xilka laga qaaday ee gaashaanle sare Khaliif Cabdulla Maalin sida ku cad wareegta ka soo baxday aqalka madaxtooyada looga haramiyo dowlad goboleedka Galmudug ee markaasi maamulka Galmudug. arrintan ayaa muujinaysa in madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu iclaamiyay dagaalka dhanaafida Soomaaliya waxaana haatan la qaadayaa tallaabo uu qaaday oo abuuraysa xiisad kulul oo dhexmaraysa labada dhinac. madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa magacaabistan waxa uu ku sheegay in dabcan ay tahay mid aan ka dhaqan galin deegaanadiisa isagoo iclaamiyay dagaalka dhanaha dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda federaalka ayaa maalmo ka hor ka hadashay inta badan taliyayaashii ka howlgalaya deegaanada maamulka Galmudug iyadoo magacawday saraakiil cusub taasoo hadda keentay in Qoorqoor uu ka biyadiido soona magacaabo saraakiil kale oo dhankiisa ma jirto ilaa iyo hadda wax wada hadal oo ka soo baxay labada dhinac ee dowladda ee ku aadan magacaabista uu sameeyay Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyadoo arrintan ay durbaba dhalisay hadalhayn xooggan oo qabsatay baraha bulshada iyo markaasi fagaarayaasha caalamka. tallaabadan ayaa waxaa horey u qaaday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka biyadiyay qorshaha dowladda federaalka waxaase ugu dambeyn dhacday in meesha laga saaro kadibna lala wareego maamulka uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka Galmudug ee Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor. si kastaba haatee arrimaha haatan kasoo cusboonaanaya maamulka Galmudug ayaa salka ku haya doorashooyinka maamulkaasi waxa uuna khilaafkan u bilowday mowjado siyaasadeed oo maalmahan ka socday ama ku wajahna magaalada Dhuusamareeb. tani markii uu dib ugu soo laabtay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Kaariyo Qoorqoor dalka ayaa waxa uu bilaabay kulamo siyaasadeed oo ka bilaabaya deegaanada maamulkaasi iyadoo dabcan ay markaasi xiisad u muuqato mid lagu sii kala fogaanayo. filla Soomaaliya ayaa mar kale waxay luminaysaa xubin muhiim oo ka tirsan waa xubnaha dowlad goboleedyada iyadoo horey uga baxeen maamulada Jubbaland iyo Puntland oo horey uga maqnaa halka Koonfur Galbeed ee dowladda Soomaaliya ay meesha ka saartay xukuumadda uu hogaaminayay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor. dhanka Hirshabelle muran soo dhexgalay maamulka Hirshabelle iyo dowladda federaalka ayaa ugu dambeyn la xaliyay balse haatan waxay sheekadu u muuqataa in Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu noqon doono dowlad goboleedka xiga ee ka bixi doona dowladda horka ee Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo mucaaradku u buratumanayaan in 15 May markii la gaaro ay markaasi dagaal bilaabi doonaan haddii aan dalku aynu u jihaysan waa markaasi xaaladda siyaasadda ama ayraada doorasho toosa ama doorasho heshiis lagu yahay oo la aado. haddaba waxyaabaha ka soo kordha khilaafkan soo kala dhexgala filla Soomaaliya iyo maamulka Galmudug barnaamijyadeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa.